qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada sare ee magaalada Muqdisho ayaa dibadbaxyo dhigay kadib markii wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya uu ku dhawaaqay in la joojiyay imtixaanaadkii socday dhamaadka bishana la qaban doono imtixaan cusub. xalay ayuu wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre kaga dhawaaqay telefishinka dawladda in guud ahaanba la joojiyay imtixaankii dugsiyada sare ee dawladda, isagoo joojintaasi ku sababeeyay in imtixaankii oo iib ahi suuqa soo galay. warar kala duwan oo baraha bulshada lagu soo bandhigay ayaa lagu arkayay waraaqihii imtixaanaadka oo sida la sheegayba lagu kala gadanayay meelaha qaar. imtixaankaasi oo tan iyo Sabtidii ka socday gobolada iyo bartamaha Soomaaliya. sidoo kale waxa uu wasiirku sheegay in goobihii kale oo dhan uu caadi ugu socday oo ay hal goob kaliya ka dhacday falkan isagoo aan carabaabin goobtaasi. sidoo kale wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in imtixaanka dib loo qaadayo iyadoo ka duwan sidii hore oo aan la qaadi doonin maalmaha uu socdana baraha bulshada la xiri doono, waxaana dib loo qaadi doonaa 27 bishan ilaa 31. arintani ayaa dhaawac ku ah dawladda iyo wasaaradda waxbarashada oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal ugu jirtay mideynta imtixaanaadka dalka. sidoo kale waxay arintani niyad ku tahay shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dhaqaalaha ku bixiya joogteynta imtixaankaasi oo aan marnaba filayn in sidani ay wax u dhacaan. xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed oo kamid ah xisbiyada ka jira gudaha dalka Soomaaliya ayaa arintaasi cambaariyay. gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed mudane Injineer Yuusuf Cusmaan Cumar ayaa cambaariyay falkaani isagoo ku tilmaamay in xilligan aysan ahayn in la joojiyo imtixaanaadka. anigoo ku hadlaya magaca xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed ahna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan ka xumahay dhacdadii ka dhacday magaalada Muqdisho. waxaan ugu baaqayaa in ardadii maanta dhibaatada loo geysay ay ka magdhow ay ka bixiyaan wasiirka waxbarashada Mr. Goodax Barre. waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Farmaajo iyo muxuu ahaayay Xasan Khayre inay suuqa si badan ay uga badaan halkaas, maxaa yeelay nin aqoon u leh maaha, nin matali karo golaha wasiirada maaha, waa nin saflabood ah. marka haddaan nahay xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dawladda inay arrintaas wax ka qabtaan. ardadii Soomaaliyeed dhibaatada loo geysana in jawaab cad ay dawladda ka bixiso. ardadii la dilay, ardadii xabadda ku dhacday waa in laga jawaab celiyaa. haddaan nahay xisbiga ayaha shacabka Soomaaliyeed ma aqbali doono in ummadda dhibaato loo horseedo, ma aqbali doono in ummadda la dhibaateeyo. maxaa waxay ardada dhibaato waxay ku bartaan waa la soconaa. maanta dawladdu waxbarasho free ah ma hayso. maamul goboleedka Puntland ayaa horey u diiday imtixaanka, taasina waxa ay ka careysiisay dawladda federaalka. imtixaan isku mid ah in laga qaado dugsiyada sare ee koonfurta iyo bartamaha waxa ay soo bilaabatay sanadkii 2015 iyadoo isku dayadii hore ee guuldareysteen dhammaantooda. Ismaaciil Mire, JTV, Muqdisho.